dhammaantiin baan idin salaamayaa waxaa idinku salaamayaa salaanteena qaaliga islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay medical terminology ereyada caafimaadka weliba khaasatan specially waxaan ka waramanaa suffixka ama bardhamaadka ereyga wuxuu yahay aynu ka warami doonaa insha Allah waayahay haddaynu gudagalno introduction horodhac in medical words ereyada caafimaadka suffixku is added waxa lagu daraa to the end of root ya ereyga rootka bardhamaadkiisa ayaa la raaciyaa or ama ereyga combining formka loo yaqaan to change so marka u bedelo it is meaning macnihiisa ereygii marka la raaciyo suffix la raaciyo macnihiiba isbedelaya for example tusaalahan the combining form ereyga combining formka loo yaqaano gastro oo macnihiisu yahay stomach kaasaan tusaale ku bixin doonaa haddaan sii wadno waxaan raacin doonaa the suffixka mageli la yiraahdo raacin doonaa mageli macnaheedu waxa weeye waa enlargement waa weynaan iyo waxaan raacin doonaa suffixka lagu magacaabo itis oo ah inflammation caabuq tahay way gastro ayaan mar waxaan raacinanaa ereyga marka combining formka waxaan raacinanaa mar waxaan raacinanaa mageli marna waxaan raacin doonaa itis bal macnuhu si isu bedelo daawo gastro mageli hadda tiraahdo waa is an enlargement of the stomach calool weynaad baa qofka ku dhacday ya calool weynaad gastritis hadda tirahdana waa is an inflammation of the stomach caabuq baa calooshii qofka kaga dhashay tusaale calooshii baa caabuq qofkaas caabuq haya marka macnihii labada ereygu waa ereyguun oo gastro waa stomach waa calooshii mar macnihii ereygo dhan waxaa bedelaya bardhamaadka ereyga marka lagu darayo marka labadan suffix baan adeegsanaa suffixka koobaad waxa loo yaqaanaa mageli waa enlargement waa weynaan marna waxaan adeegsanaa itis oo ah inflammation oo ah marka caabuq ah way whenever you change the suffix mar walbo aad bedesho ereyga suffixka you change the meaning of the word waxa isbedelaya macnaha ereyga mar walbo marka aad bedesho ereyga suffixka aad bedesho you change the meaning of the word waxaad markaa bedeshay macnaha ereyga waad isbedelaya marka waad bedeshay waayo hadda wanigi soo aragnay ereyga gastro waa combining form waa erey marka lagu magacaabo marka caloosha la yiraahdo way gastro ereygaas marka mar waxaan raacinay mageli marna waxaan raacinay itis baan raacinay mageli waxa ay enlargement itisna waxa ay inflammation labadooduba waxay bedeleen macnihii ereygaasi u taagnaabi bedeleen noocyada suffixka aynu isla fiirin doonaa suffix typeska noocyada suffixka an effective strategy in mastering medical terminology is to learn the major types of suffix such as surgical diagnostic and pathological an effective strategy habka ugu wanaagsan ee ereyga caafimaadka lagu baran karo waliba major types of suffixka noocyada ugu muhiimsan ee marka suffixka lagu baran karo waxa weeye annagoo marka kala qaybqaybina such as sida inaan marka hore baranno surgical suffixka kuwa qalliinka loo isticmaalo bardhamaadyada qalliinka loo isticmaalo bardhamaadyada loo isticmaalo diagnostica loo isticmaalo shaybaadhada bardhamaadyada loo isticmaalo pathologicalka xanuunka loo isticmaalo annagoo marka sida u qaybqaybinana ayuu marka insha Allah ku baran doonaa marka waxaynu ugu soo horeeyaa common surgical suffix kuwa ugu caansan ayaynu soo qaadan doonaa insha Allah this table shaxdan ama table-kani list waxa marka ku taxan commonly used kuwa ugu caansan ee la isticmaalo surgical suffixka bardhamaadka loo isticmaalo qalliimada alongi kuwaasoo waliba ku dhararan with their meaning macnahoodii and word analysis iyadoo marka la jabinayo way suffixkan waxaad ku aragtaan qaybta koobaad waxaad ku aragtaan suffixkii qaybta labaad waxaad ku aragtaan meaningkii macnihii qaybta ugu dambaysa waxaad ku aragtaan word analysis ereyga marka la jabinayo way ereyga ugu horeeya waxa loo yaqaanaa synthesis macnihiisu waxa weeye waa surgical puncture weeye waa in qofkii meel la dalooliyo tusaale waxaan ugu qoran ereyga arterosynthesis artero it means waa joint waa xagga hooseeda ku qoran waa joint waa kala goysadii hadaba arterosynthesis marka la yiraahdo macnaheedu ereygu isbedelaya artero markii halkaas ka taagnay ereyga combining formkay wuxuu ahaa joint buu ahaa waa kala goysada marka synthesis la raaciyo oo ah surgical suffix ah marka la raaciyo wuxuu noqonayaa puncture of a joint space with a needle to remove accumulated fluid from a joint wuxuu noqonayaa in la dalooliyo jointiskii space loo sameeyo si marka needle ba marka space lagu sameeyo waa needle ba la gelinayaa to remove si looga soo saaro accumulated fluid dareeraha marka is ururiyay ee from jointiga marka kala goyska ku dhex jira marka inta badan waxa jira dad dareero ama fluids ay ka galaan joints ka galaan kuwaasoo marka needle lagaga soo saaro needle kaas marka lagu daloolinayaa waa laga soo tuujinayaa way
ereyga ku xiga waxaa loo yaqaanaa calasis. Calasis waa to break, waa in wax la jabiyo, ama surgical fracture, in qalliin inta qofkii lagu sameeyo qalliin jabnina, qof baa si xun loo kabay oo kale, laf baa si xun u kamatay, dub baa loo jabinaya, dub baa markaa loo kabaya. tusaale osteocalasis. Osteocalasis, osteo markuu halkaas ka yaallo waxaa lagu magacaabaa waa bone, sida xagga hoose ka muuqataba osteo waa bone. haddaba haddii la raaciyo ereyga calasis oo ah to break ama jabniin, in la jabiyo, waxa weeye waa surgical fracture, in lagu sameeyo qalliin jabinayo of a bone, laftii ayaa lagu sameynaya in order to correct, si markaa loo soxo deformitygeedii, qaabkeedii si loo soxo. marka surgical fracture baa lagu sameynaya. surgical fracture la sameynaya waxa weeye laftiba dib loo habeynaya, waayo laftii si xun bay u kamatay. taasaa markaa waxaa la odhanayaa qofka waxaa procedureka la sameeyey waxa weeye waa osteocalasis baa la sameeyey. way haddaan u nimaano ereyga lagu magacaabo desis. Desis waa binding ama fixation of a bone joint, in laba lafood ama laba markaa kala goys in la isku xidho ayaa markaa waxa lagu magacaabaa waa binding. waxaa la isku dhejinaya laba joints, ama waxaa la isku dhejinaya laba lafood baa la isku qabanaya. tusaale arthrodesis. arthro sida hore kusoo sheegay waxaa lagu magacaabaa waa joint, waa erey combined form. way haddii la raaciyo arthrodesis, haddii la dhahdo arthrodesis waa binding together a joint, waa in la isku qabto labadii kala goysyadii baa la isku qabanaya. taasaa markaa waxaa loo yaqaanaa arthrodesis. way ereyga ku xiga waxaa loo yaqaanaa ectomy. ectomy waxa weeye waa excision ama removal, in meeshii wixii laga saaro. tusaale qof baa markaa kili baa fadhiisatay, labadii kiliyood baa midi fadhiisatay, dee mid baa meeshii laga saaraya, marka ectomy baa la sameynaya, meeshii oo laga remove garaynaya. halkan waxay nagu qoran appendectomy. abandi haddaad maqasho waa abandigiska weeye. abandi waa erey ruud ah, abandigis baa la yidhahdaa, abandigiskuna waa qabsinka weeye. tusaale markaa qofkan appendectomy waa lagu sameynaya. appendectomy waxaa loogu magacaabaa waxa weeye waa excision of the appendix, in meeshii laga saaro appendixiski laga remove gareeyo. way lasis waa separation ama destruction ama losing, waa in meeshii wixii laga dabciyo ama meeshii wixii separation lagu sameeyo la kala qaybiyo. way tusaale thrombolysis haddaad maqasho, thrombo it means waa blood clot, waa xinjirayntii dhiigga, waa xinjirayntii, marka waa blood clot, thrombo blood clot-ka loogu magacaabaa. haddaba dissolution baa lagu sameynaya of blood clot. ereyga ku xiga waxaa la yidhahdaa bexy waa fixation of an organ, waa qurxintani, waa qurxin. bexy waa fixation, in meeshii lagu hayo wey, lagu hayo camal organ baa loo baahan yahay inuu meeshiisa aanu soo dhaafin, halkiisaa lagu hayo xubin. way mastopexy. masto haddaad maqasho waa breast. mastopexy haddaad maqashana waa surgical fixation of the breast, in qalliin lagu sameeyo oo dumarkii oo kale naasiyo kale inta qalliin ku sameeyaan oo kale ay markaa sameeyaan dadka inta badan qurxinta waxa ka shaqeeya inay markaa meeshoodii ku hayaan, oo dee meeshoodii breastki meeshoodii ku hayaan, aanu soo dhaafin, aanu markaa noqon ay sidii as a teenage oo kale, sidii ay dhalinyaro oo kale yihiin, teenage oo kale yihiin, oo markaas oo kale curdina inay saas oo kale markaa noqdaan. mastopexy waxa la dhahaa waa an elective surgery, waa qalliin baa lagu sameynaya elective ah oo meesha lagu haynayo, is a performed to a fix such breast in a more elevated position, often improved their shape. shapekiisii uu markii hore ahaa oo dhalinyaradu markay gabadhu ahayd shapekeedii oo kale aka lagu ekaysiinaya, waayo dadka inta badan filmaanta sameeya, dadka inta badan waxa noocaas oo kale sameeya ayaa inta badan qallimada noocaas oo kale gala. way balasti waxaa lagu magacaabaa balasti waa surgical repair, waa in dib loo habeeyo. tusaale rhinoplasty. rhino means waa erey combined form, waa erey markaa combined form, waxaa lagu magacaabaa rhino waa nose, waa sanka, sida hoose ka muuqataba. marka rhinoplasty haddii la dhahdo, rhinoplasty waa surgical repair, in dub dayactir loogu sameeyo, dub loo hagaajiyo, in which the structure of the nose is changed. structure-ka ama qaabkii sanku ahaaba dib loo bedelaya. tusaale dad waxaad aragtaan san waaweyn baad aragtaan, dadka sanka waaweyn oo kale qallimay maraan, qallimada marka ay maraan oo kale waxay oranayaan qalliinka baa maanta qalliin, waxaan doonayaa inaan maro sankaygaan doonayaa inaan markaa yareeyo, aan ka dhigo markaa san dhuuban oo dheer oo qurux badan ka dhigo. dadka noocaas oo kale waxay u baahan yihiin marka dadka noocaas kale inay sameeyaan balasti oo surgical repair bay isku sameeyaan. way rafi waa suture, waa tolin. maayo rafi haddii la dhahdo, maayo waa erey combined form, waa maskal, waa muruq. haddii markaa la raaciyo rafi, la raaciyo maayo rafi haddii la dhahdo, maayo rafi
maayarre fi hadii la yiraahdo waa suture of muscle muruqii baa la tolaya ereyga ku xiga waxa loo yaqaanaa ostomy waa forming an open mouth in afka loo furo meelba afka loo furaya camal wax kale oo la sameeyo afkun baa loo furaya tusaale tracheostomy hadii la yiraahdo tracheo hadad tracheo maqashaan tracheo waa trachea way camal waa windpipe-ka hungurigan tracheo hadad maqashaan tracheo waa hunguriga waa erey combined form sida xag hoose ka muuqata tracheostomy hadii la yiraahdo tracheostomy waa artificial opening baa lagu furaya artificial opening through the neck into the trachea into which breathing tube is inserted qof baa tusaale waxa ku dhacay shil baa qof ku dhacay shilgii ku dhacay waxa ka soo gaaray ama accident waxa ka soo gaaray marka sankii afkii baa marka xidhmay blockage noqday hadduu sankii afku xidhmo blockage noqdo marka adiga waxa kula gudboon inaad procedure kan sameeyso tracheostomy inaad sameeyso aad qofka dhuunta aad u furto halka aad u furto tusaale ahaan oo kale halka markaad qofka tracheostomy aad u sameynayso qofka marka waxyaala artificial opening intaad sameeyso aad kala furto ayaa tube dhex gelinaysa tube-kaas marka neefta ka qaadanaya qaabka noocaas oo kale la sameeyo wali inta ban shilalka oo kale marka qofku sankii afku ka neefsan kari waayo ayaa qofka markaas emergency loogu sameeyaa way Tommy haddaad ereyga Tommy maqashaan Tommy waa instrument to cut Tommy waa instrument to cut jaray waa qalab wax lagu jarayo osteotomy haddaad maqashaan waa surgical instrument for cutting waa instrument loo isticmaalo qallimada si marka loogu jaro through the bone lafta kale sida loogu jaro kale ama lafta lagu gooyo ereyga ku xiga waxa loo yaqaanaa Tommy waa incision waa la kala dilaacinaya tii hore ahayd ostomy ahayd iyo tan maxay ku kala duwan yihiin tan waxa ku kala duwan tan qalliin caadi ah qofku maraya oo surgical caadi ah oo marka diyaarsan ayuu maraya taasina waxay as emergency baheedo nagta marka la kala furay tan as emergency maaho si qofkan waxa loo kala furaya dhuunta waxa loo baahan yahay marka in wax kale laga qabto dhuunta doono bura laga soo jaraya hawlo kale laga qabanaya marka incision kanu marka oo noocawi Tommy waa incision tracheotomy hadii la yiraahdo tracheo san hore soo aragnay waa trachea waa windpipe-ka hunguriga hadii la raaciyo tracheotomy hadii la yiraahdo waxa la sameeyaa incision through the neck into the trachea tracheada marka waxa la sameeyaa in la furo incision lagu sameeyo la furo way tracheotomy is a performed to gain access to an airway blockage qofkaas airway-ga ayaa ka xidhmay halkaas marka tumba loo gelinaya weligiiba marka halkaas ka neefsanaya inta marka ka dhimanayo waxna wax si aas emergency tube yar loo gelinayo inta blockage-kii afkii wixii xidhayo iyo wixii sanka xidhay laga kala furayo taasi waa ostomy aan hore soo aragnay waxay ahayd qofka in si aas emergency oo artificial baa la dhahaa si artificial ayaa loo furaya taasoo marka satani waa weligiiba marka procedure kan inta uu marka qofkaasi bilow afkiisaas iyo sankiisaas ciladaas marka ka haysata inta ka badbaadayo ama intuu marka weligiiba ka dhimanayo sidaas marka uu qofkaasi ugu ahaanaya way tripsy waa crushing waa burburin lithotripsy haddaad maqasho waa erey combined form waa stone waa dhagax ama calculus waa dhagaxun lithotripsy haddaad maqasho lithotripsy waa crushing of a stone waa in dhagaxii la burburiyo way dhagaxii baa la burburinaya taas marka loo yaqaan way afgisku inoo sii socon doona insha Allah waxa arsan bardhamaadkii loo isticmaalayay diagnosis-ka waxa arsan bardhamaadkii loo isticmaalayay marka xanuunada markaas afgisku inoo sii socon doona hadda waxaanu yara khatinay common surgical afgiska ugu caansan waxaad ka fahantay insha Allah comment-ka inoogu reeb iyo wixii tala bixina iyo wixii tusaale aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh